afayeenka xisbiga oo nalif mudane cadani hirmooge ayaa shir jaraad ku qabtay hotel Istanbul ee magaalada Jigjiga. Xisbiga oo nalif ayaa ugu horeyn si qoto dheer uga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo diiwaangelinta musharaxiinta. Afayeenka xisbiga oo nalif ayaa sheegay in ka badan 27 degmo deegaanka Soomaalida isurtaag rasmi ah lagu sameeyay. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Waan salaamayaa saxafiyiinta iyo dadka soo qayb galay kulankan saxaafadeed ee maanta jecelahay inaan la wadaagno saxaafadda Soomaalida midda caalamka iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee danaynaya arrimaha doorashada sidaad la socotaan diiwaangelinta tartamayaasha ama murashaxiinta heer federaal iyo heer deegaan muddo 4 bari ay socotay oo u dambeysay waxayna gabagaboobay bishan maanta 11-8 wixii aan kala kulannay oo xog aan soo ururnay oo dhab ayaan jecelahay in dadka Soomaaliyeed la wadaagno waxa dhacay wax la yaab la ka dhacay diiwaangelinta ilaa iyo 18 degmo oo deegaankeena horistaag rasmi ah ayaa lagu sameeyay oo isu wada eg waxyaalana ku kala duwan xafiisyo aan la furin oo tartamayaashiiba aan loo furin oo la diiwaangeliyaashii ayna joogin ama hawlwadeenkii doorashada ayna joogin kuwo intii la furay markii la diiwaangeliyay xisbiga BB-da xubnahoodii la xidhay oo dib loo furin kuwo la furay oo in la galo la diiday shaqaale iyo ciidan ay soo taageen muxuu ahaa tartamayaashii magaca ururka oo laf ku socday laga hor istaagay gobolada ugu daran ay dhibaatooyinka ka dhaceen dalka uu ku baahsan yahay waxa ugu daran waxa gobolka Liibaan oo 6 degmo oo goob doorashooyin leh ama baarlamaan leh aan waxba laga diiwaan gelinin intooda barnaamij xafiiskooda oo aan la furin haddii la furayna muddo yar furaa oo loo ogolaan dadka kadibna la xidhay maamulada oo toos u farageliyay waxa gobolka Liibaan dheer dadka ku qoran shaqaalaha ama hawlwadeenka doorashadu intooda badan oo shaqaale dawladeed bay ahaayeen intooda badan xeer ilaaliye madax xafiiseed nin dawladda u shaqeeya xubin xisbi noocyadaas oo markii dib loo raacay taas la yaab bay lahayd 6 degmo ee gobolka kamida sidaas sida la og yahayna doolow madaxda xubnaha BB-du waxay sheegeen inay online lagu diiwaan geliyay meesha dadkii physical u tagay cid diiwaan gelisay ay wadaan xafiiska cid furta guddiga doorashaduna wuu la socdaa xafiiska doorashada heer deegaan iyo xafiiska doorashada heer federaal intaba waan la socodsiinay gobolka Shineele gobolka City magaalada Shineele amba wax diiwaan gelin ka dhacday dhamaan inta kale oo dhan hor istaag baa lagu sameeyay xubnihii tartamayaasha magaca ururka oo laf ku socday gobolka Shabeelle degmooyinka Feerfeer Mustaxiil Qalaafo iyo Cadaadle waxa ka dhacay hor istaag rasmi ah iyagana oo maamulku soo faragelinay gobolka Doolo degmada Galaadi bay ka dhacday gobolka Jarar degmada Daroor iyo Awaaraba hor istaag baa lagu sameeyay isu geyn 87 xubin oo tartamayaal ayaa lagu sameeyay arintaas iyo carqaladayntaas xisbiyada kalena ee mucaaradkana sidaas ay ahayd waxa la yaab leh tartamayaasha xisbiga BB-da intooda badan mayna tagin qaarkood degmooyinkooda way ka muuqdeen laakiin qaar badan mayna tagin online baana lagu diiwaan geliyay horaan u qaadanay wax complain iyagu muxuu ahaayay dhanka malayn waa xisbiyada mucaaradka oo la fugu horeyso hawsha ayada waxaan ka gudbinay dacwo rasmi ah si aad u dhow oo xoogaal ah bayna la socdeen guddiga doorashada ee heer deegaan ee magaalada Jigjiga iyo xafiiska doorashada ee guddiga doorashada ee federaalka si toos ah la socdeen waxaanu ka dalbanay inay baaritaan rasmi ah sameeyaan taana way ballan qaadeen dacwo rasmi ah gudbinay talaabada aan ka qaadan doono habkan lagu kacay doorashadiiba iyadoo dhicin diiwaan gelinta يعني لهور استاجيو waxay ku xiran tahay dacwada aan u gudbinay
dacwooyinkaan u gudbinay heer federaal iyo heer deegaan sida looga soo jawaabo iyay ku noqon doontaa iyay ku xidhnaan doontaa go-aanka iyo jawaabta saxda ama kama dambaysta oo lafka qaadan doonto gooba waxaa jira xubnaha anaga loo gacan qaaday sida magaalada Gurradhaam oo kale taysarooyinkii intii laga qaaday baa qaarkood la xidhay muddo xidhnaayeen magaalada la yiraahdo Ceelkarri tartamayaashana intii loo gacan qaaday askar u gacan qaaday waa dokumentiga laga qaatay magaalooyin handadaad loo geystay magaalada Shilaabo oo ugu yaray tartamayaashana qaar kamid ah yaa ciidamo intii lagu dalbaday yaa loo gacan qaaday hashay goosh marka gacan qaadka iyo handadaada iyo xanibaadu way socotay xanibaada ka wada siman yihiin gacan qaadku ku kala duwan yihiin meesha waxa ka muuqata rule of law ma jiro dawladda ismaamulka Soomaalidu sharciga inuu ilaaliyo ma doonayo wuxuu doonayaa inuu sharci darro ku guuleysto dadka in la cabsiyo shaqaalaha wax diiwaan gelin in la cabsiyo in muxuu ahaayay laga leexiyo wadadooda in musuqmaasuq ku dhaqmaan in ay carqaladeeyaan xisbiyada kale inay carqaladeeyaan marka anagu daraasad baan ku haynaa dacwo rasmi ah oo dhameystiran baan gudbinay guddiga heer federaal iyo guddiga heer deegaanba way si fiican bay ula socdeen dhacdooyinka jawaabta iyagaan ka sugaynaa go'aamada kama dambaystaana taasay ku xidhnaanaysaa waxaan jecel lahay inay doorasho sax dhacdo waxaan jecel lahay in loo hoggaansamo anshaxa xisbiyada ay saxiixeen doorashada guddiga doorashadu ay dejiyeen in la ixtiraamo xeerka doorashooyinka in la ixtiraamo xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed u leeyihiin in la doorto ay waxna doortaan sharci kasta oo samaawi ah iyo mid kasta oo dad sameeyay ay u ogol yihiin marka waxaan ka dawladda cidii la rabay inay sharciga ilaaliso inay iyadu noqoto cidda duminaysa ayaan dareen ugu tahay wixii faahfaahin dib baan kala wadaagaynaa aad iyo aad baad mahadsantihiin